dhibaatada ka dhacday maanta waxay ahayd waxaa qarxay aalad hadda ka horba xaafadda waxaan uu ku qarxay ay ku isticmaali jirtay marka dhibaato badan ayaa qoyskaas soo gaadhay iyo weliba maaragtay dadkii ku hareeraysnaa ee dhallaanka ahaa meeshan waxay ahayd meel suuq ah gabadhan ay wax ku qarxeen iyada iyo carruurteeda ku dhimatayna meel dukaana ayay lahaayeen marka timooyood ahaan ayay waxaan u isticmaalayeen marka dhibaataduna halkaasay ka timid marka waxa qarxay waa maxay cabdinaasir cabdiraxmaan waxaa jirta bir yar qaab bamba ahaan u samaysan ayay gabadhu waxay ka dhigan jirtay tibta caadiga ee mooyaha lagu tunto oo kale timooyoodka yarka wax lagu tunto oo kale ka dhiganaysay in badanna way kusoo isticmaali jirtay sida la ii sheegay laakiin waxaan wuxuu ahaa siday dadku hadda aamineen inuu ahaa wax 77 hubkii Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkii u dhaxeeyay wax ka soo haray waxaan inuu ahaa oo waxay ahayd bir malakuusan oo meel dambe oo la qabsadana leh marka iyadoo arrintaasi saas tahay oo in badan ay kusoo isticmaali jirtay ayaa wiil yar oo keeda gabadhan hadda wax ku qarxay oo ag fadhiya yaa birtii iyo bir kale isku garaacay marka kadibna wixii ayaa saa ku qarxay marka qarax weyn ayaa halka ka dhashay carruurtii halka fadhiday iyo hooyadood iyo weliba carruuro kale iyo dadkii markaas halka ka danaysanaya oo dhan ayaa marka saas wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmaba ay noqdeen cabdinaasir waa imisa dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi cabdiraxmaan dad ilaa 4 qof ayaa ilaa haatan lii xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen laakiin dhimashadu waa 5 qof waa 4 carruura iyo hooyadood gabadh yar ayaa lii xaqiijiyay inay maaragtay dhaawac noqotay oo madaxa firirka uu ka soo gaadhay iyadii markii loola soo cararay xagga magaalada Dhagaxbuur isbitaal ku yaala ayay dhaxda ku dhimatay gabadhii yareedna 4 ruux oo kalena oo dadkii meesha ka dukaamaysanayay iyo carruur yar oo halka taagneedahayna way ku dhaawacmeen marka cabdiraxmaan aaladan hadda dadkani ku dhinteen dad badan ayaa haysta oo magaalada Dhagaxmadow degan birahana waa bireenta badan timooyada ahaan u samaysan oo dadku wax iskaga tunto marka hadda waxaa la sheegay in laga ururinayo dadkii ku isticmaalayay aaladan oo kale marka saas xaalkaas u dhacay ilaa haatan oo saqda dhexe aan iswareysanaynana dadkii waxay ku mashquulsan yihiin dadka xabaashoodii oo qoyskii halka ku dhintay oo 4 ilmood iyo hooyadooda ayaa lagu mashquulsan yahay xabaashoodii hadda marka cabdiraxmaan wax qoyskani wuxuu ahaa 7 ruux oo 2 waalid iyo 5 ilmood marka waxaa ka soo hadhay aabihii iyo 1 ilmo ayaa qoyskan ka soo hadhay oo 7 ruux ahaa